isla fahmay haddaba 600 iyo 1000 baabuur oo dhinacaasi taagan ka hor intaan waxaan aan dhicin aan sii sheegaynay xabad joojintii yaa jabiyey xabad joojinta 9 iyo 9 iyadoo lagu heshiiyey maylan oo 9 ah iyo salbalaar oo 9 oday ah qofkii xabad joojintaasi jabiye dawladda la dagaalamaysa la yidhi habeenimo ayay qaleen muwaadinkii reer maylan reer salbalaar habeenimay ku guurayeen say u qaleen intay hirshabeelle ka yimaadeen oo macnihii ay tuulada bayaaqbari weyne agteeda marti u soo noqdeen qoryaha soo macnihii qarsadeen bay waxay yidhaahdeen musaafir baan nahay afur baan u baahannahay yaa muslimiin afur hana la siiyo bal qiyaas qof muslina kuu yimaaday oo afur ku weydiistay ma u diidi lahayd adoo ashaadanayo oo sooman waa maya afur baa la siiyey waa la soo dhoweeyey marka la afuriyey oo la dhargiyey oo cashana loogu daray suxuurtana weelasha loogu shubay ayay baxeen ilaan afur uma soconine siday xaliimo jaylaani sheegtay waxay indhaynayeen tuulada inay hub haysato tuulo kasta oo walla weyn ku taalla aad bay u hubaysan tahay tuulada ugu yar 70 qori bay wadataa laakiin ma aysan feejignayn saddexdii habeenimo intay ku soo kala fireeyeen kuwii suxuurta iyo afurka siiyey ayay sidaan u dileen iyagoo jeejiifa waxaan u malaynayaa beenlow nin maqan iyo nin mootan buu marqaati ka dhigtaa ninkaasi uustiisa bannaanka soo jeeda kii cashada iyo afurka iyo suxuurta iyo sharaabka iyo caanaha siiyey oo maylan u dhashay ayay sidaan u dileen iyagana xabad joojintii jabiyey nasiib darro sanataradii inaan u jawaabo ma doonayo anigu waa dumare way ka dulbooday inay xabad joojinta iyagu jabiyeen iyadoo weliba hirshabeelle laga soo doorto xaqna aysan u lahayn in ay ka doodo arrinta shabeellada hoose because lagama soo doortaba kursigeedana ma yaallo shabeellada hoose iyo maylan waxa uu yaalaa hirshabeelle sidaasi daraaddeed bal qiyaas qof adigu aad afurisay oo haddana kugu soo jeestay afur iyo suxuur aa siisay kugu soo jeestay adoo hurdaaya qofkaad afur siisay casho siisay suxuur siisay oo macnihii bil ramadaan lagu jiro oo sidaa kuu dilay aamin intee la eg baad aamini karaysaa maylanow waxaan u malaynayaa hooyadaa weli way irmaanan tahay hadalka aan dhahayo meel dheer buu dhacaya hooyadaadu way irmaanan tahay macnaheedu waxa weeye caqligaagu weli ma korin baan u malaynayaa dhallinyaradu way xoroobeen laakiin odayaasha weli waxbaa ka siya iyo kuwa siyaasadda matalaya waxba anigoona hebel aan dhihin walaalayaal qodobkaas haddaan isla fahamnay marka walla weyn hadda maxaa loo qorshaynayaa saacaddaas aan idinla hadlaayo daafeed halow walla weyn isficila ama isfiirfiiriya idinkay idiin taallaa annagu sheegis baan leenahay waxaa idinku soo socda ma idiin sheegaa walla weynay wax ma kuu sheegaa waxaa la qorsheeyey maalmaha soo socda ama saacadaha soo socda in laydin yimaado oo la idinku dhaho reer walla weynow niman dowladda federaalka sheeganaya oo shuuto oo kale ah ayaa idin imaan doona shuuto ma soo noqon doona mar dambe imaanayu yidhi laakiin niman dowladda sheeganayaa idin imaan doona sida qorsho uu yahay haddii lifekeena uusan wax fashilinin waayo annaga dhuusadoodan ogna qorshaha la soo dejiyey baa marka waxay tahay in dadka walla weyn iska leh ee reer mayland iyo leega iyo yaaqbari weyne iyo goobaan leh dhulkaas iska leh asal ahaan oo dadka soo dhoweeyey maadaama xabad joojintii waa la jebiyey ay ku doodayaan maadaama dhibaato badan macnihii ay sheeganayaan in la yidhaahdo shanta caleemoodow ama reer walla weynow fiiri waa divide and rule qaybi oo xukun kala dil waa reer walla weynow waad fasaxan tihiin dhulkiinii dhaxsada kuwa isbaarooyinka dhigtay ee idin dilaaya warkaasi dowladdaad dhihi doonta hadda ogow yaa lagu dhahayaa masalbalaar baa maya walla weynaa lagu dhahaya walla weyn inta loo yimaado sida qorshuu yahay waxaa la dhihi doonaa annaga dowladdiyaana nimankan waan ka noognay
gacmihiinaan qabannay in badan ma fahmaysaa dhulkiinii ka dhacsada iska celiya laaya ama macnihi ha idinka adkaadaano annagu bannaankan idinka taagannahay haddaan dowladda nahay waan isku kiin fasaxnay ayaa la dhihi rabaa warka aad u dhagaysta marka sidaasi la yidhaahdo reer Walaweyn dagaal bay qaadayaan waxay dagaal ku qaadayaan nimankan salbalaarta is urursatay ee huwanta ah oo macnihi mooryaanta dowladana tuutaa wata ee marna qabiilka ah ee galmudug iyo hirshabeelle iyo ka soo duulay ayay weerar ku qaadi doonaan mana u daahayaan leega iyo aqbari weyne daqiiqada gudahooda ay qaban doonaan marka ay leega iyo aqbari weyne ay u gudbaan marka oo ka saaraan ilaa iyo kaynta oo dhan ciidamada dowladda ayaa lagu fasixi doonaa reer Walaweyn dhabarka ayaa laga toogan doonaa marka dhabarka laga toogto oo in badan laga dhameeyo markaas la dhigi doonaa sorry waa ka xunnaay marka waan idin kala dhexdhexaadinaynay dagaalkii aan dheeraaday sidaas daraadeed macnaheedu dowladii federaalka nahay adinkuba ayagaba intaas hore aan uga dilnay markay xabad joojinta jabiyeen adinkuna macnaheedu intaas haddaan macnaheedu idin ka dilnay macnaheedu sida marka hadda macnaheedu fariista wada fariista waxa intaas oo dhan loo sameynayana waxay tahay oo la soo riixayo oo la soo macnaheedu karkarinayo dhulka waan isla leenahay in reer Walaweyn Mayland laga keeno laga dhawaajiyo ay ku dhawaaqaan ayaa la doonaya Walaweyn ma ku digay Mayland oo ma ku digay warka waa hiila iyo fiiro waa la idin fasixi doonaa dagaalka marka aad gashaanna macnaheedu dowladda federaalka Soomaaliyeed ilaan guutooyinka Mayland way u badan yihiin laakiin taliyaasha nin Mayland kuma jiro dhabarka la idinka toogan doonaa waxa la idin dhii doonaa intii iyaguba intaas laga dilay adinkana intaas hadda heshiis degdega dhulka waa wada degantihiin waa wada leedihiin adinka ku soo heshiiya annaga banaankaasaan taagana warka inaa fahamtaan loo baahan yahay Walaweyn qorshahaas socda sida uga dabaalan lahaydeen u diyaar garooba hana isku dayina inaad hub dhigtaan in macnaheedu hubka war meydka xataa qorigiis ina u gadaan mooyaane hub dhigid waxa la ma jiro intaan nin baa hadda koor jiir caana kaga dhacay caanihi markuu jiir kaga dhacay oo ka soo dhex saartay jiirka macnaheedu buulkiisi ama dufkiisu ka dhuuqay uu siiyay markaasaa jiiq uu yiri jiirkii jiiqdan ba anaa iga hesho yiri laakiin mid walaalkay hadduu ku qaban lahaa jiiq dambe ma aadan dhiilayn waxaan ula jeedaa intaanba waxaad ku hesheen reer Walaweyn aan la hadlaya intaanba waxaad ku hesheen hubka aad wadataan low hubka aad dhigtaan Ali Mahdi dowladiisii marka la dhisay baydhabo intuu tagay baa hubka la dhigaalay dowladda dhalatay maayiga dowlad jacayl hubkii markay dhigeen sidii loo gumaaday afweyne sidoo salbalaar u gumaaday laba jeer ay ahayd salbalaar baydhabo ay tagtay saddex jeer waad ogtihiin marka waxaan sheegaynaa waxba haddaan idinka harin hub dhigid wax leeyahay ma jiraan gata hub culus meel hub la dhigaayo lama joogo galmudug hubka ma dhigto Puntland hubka ma dhigto Hirshabeelle hubka ma dhigto bal baqaaradii dowladda looga furaaya hubka la siinaya si adinka la idinku soo dilo wax kale oo loo soo dowladeynayna ma jiro Walaweyn ay cid aad gargaar iyo gurmad aad ka sugaysaan rabbul arshul azim ahayna ma jiro baydhabo waxaad ka sugaysaan ma jiro maqaar saar la geystay waa nimanka gabdhihii la kufsaday wasiirka warfaafintooda reedow yiri waa wax gabar oo la kufsaday haba yaraatee ma jiro marka sidaasi awgeed annagu waan ku dignay sharciga gacantaadu ku jira Soomaaliya maskiinimo lagu ma noolaan karo maayo wada tashan lahayd aday ku taala hadii maskiinimo ay rabtid dalka Soomaaliya ka guur gobol maanta la isku haysto oo isbaaran la dhiganayo gabdhihiisa la kufsanayo ma jiro aan shabeellada hoose ahayn iyo Mayland shabaabku siyaasadaysan adaa lagu gooyay guutooyinka fadhiyaan ku tirin doona iyo taliyaasha marka sidaasi awgeed war doqon lama gaboodsado loomana gargaaree gacantaada ku cilbeel maayo madi baa tahay isku tasho yuhuudda ayaa kaaga fiican labada company ee Soomaaliya fadhiya qodobkaas waanu fahmay waxaan u gudbaynaa arinta militariga shabeellada hoose
waan isa saarayaa kadib waxaan ku soo afjaraynaa guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya iyo salballaar 2020 hamiga doorashadooda wixii dhex maray walaalayaal caaw waxaan ku wareeganayaa shabeellada hoose kaliya ku wareeganayaa arrimaha militariga haddii arrimaha militariga aan idinla socodsiinay shabeellada hoose inta guuta fadhiya taliyaashooda iyo beelaha ay ka soo jeedaan iyo gobollada ay ka soo jeedaan taxano ay inoo ahayd cibaadadeena facebooka iyo website-yada haddaba isbedelo yar baa dhacay waxaan rabnaa caawa waxa isbedelay taliyaasha isbedelay gobolladay ka soo jeedaan gobolkan shabeellaha hoose inta ciidan degan inta urur degan inta ma arkaysa macnihii may ka ah inta macnihii aan may ahayn inaad barataa loo baahan yahay maxaa yeelay cudurkaaga markaad ogaatid dawada way saalanaan karaysaa waxaan ku bilaabaynaa guutada 7 ayaan ku bilaabaynaa ilaa iyo 4 guuto ama 5 guuto ku dhawaad ayaa degan shabeellada hoose guutada 7 xaggay degan tahay ururadeeda xaggay kala degan yihiin yaa kala haysta dhulka waa dhulkee ma dhulkii mayga mise ma ahan guutada 7 oo hoos timaada qaybta 60maad waxaa ay dhasha dhigatay halka loo yaqaano min afgooye ilaa iyo degmada Walaweyn jidkaasi dheer ayay degan tahay guutadaasi 7 waxaa maantay wixii hore xagga dhig maantay waxa ay ka kooban tahay 3 urur ayay ka kooban tahay 3da urur dadka kala haysta iyo meesha ay kala degan yihiin ku sheegaya iyo darajooyinka saraakiisha haysata kadib waxaan sheegaynaa oo macnaheedu cadaynaynaa yaa ka horeeyay horta guutada 7 waxaa taliya ka ahaan jiray xasan jaamici oo mooriyaantii indhacada daba carari jirtay ah oo haddana qaybta 12 abriil guutada fadhida loo dhiibay ceelsiniin ka howlgasha jamhuuriyadda barakaysan ee Maryland markii laga qaaday xasan jaamici oo reer cadaada ah galmudug ka soo jeeda salballaar 2 ah waxaa lagu bedelay nin la yiraahdo gaashan la dhexe Umar Xaaji Cabdiraxmaan oo ku beel ah wasiir islow hirshabeelle ka soo jeeda ama cornel shuute ku beel ah ama general odowa taliyaha ciidamada ku beel ah ayaa taliyaha guutada laga dhigay isaga hadda haysta waa gaashan la dhexe waa darajadiisu gaashan la dhexe cornel aan buuxin waa waxaana abaanduulo u ah marka nin la yiraahdo salaad fiiqow oo isaguna darajadiisu ay tahay macnihi gaashan la dhexe labadoodaba waa gaashan la dhexe salaad fiiqow wuxuu ku beel yahay daahir amiin jeesow waxa uu ka soo jeedaa hirshabeelle waa ninkii tuutaha dawladda intuu ka siibay tuulooyinkii la gubaayay ee Walaweyn Maryland dagaalka si toosa maleeshiyaadkii hirshabeelle ka soo duulay iyo salballaar 2 si toosa u caawinayo waa la xiray hal la xiray xilka lagama qaadin xarig beenbeena la xiray laakiin xilkiisi waa uu taagan yahay xilkaasi waxaa laga qaaday nin la dhihi jiray cornel Cabdullaahi Dawle oo isaguna gaashan la dhexe ahaan jiray ama gaashan la dhexe ah oo ka soo jeeda Maryland gaar ahaan degmada Walaweyn fiir guutadaasi 7 taliskeedu ama fadhigeedu waxa weeye halka loo yaqaano ay furugow ama Balidoogle gobolka shabeellaha hoose ee Maryland ayaa fadhigeedu ama taliskeeda uu yahay ninkii deegaanka lahaa waa laga qaaday nin aan deegaanka u dhanana loo dhiibay waan isla garanay salaad fiiqow booskiisu uu bannaan yahay isagaa ku magacaaban wuuna xiran yahay baa la yidhi cid kale looma dhiibin waxaan kuu sheegay guutadaasi taliyaheeda iyo abaanduulaheeda in labaduba ay ka soo jeedaan hirshabeelle waxaan rabnaa 3 urur ay leedahay urur waxa uu fadhiyaa xerashiino ayuu fadhiyaa ururkaasi waxa uu mas'uul ka yahay Balidoogle ilaa iyo Shiray Balidoogle ilaa iyo Shiray isaga ayaa fadhiya oo mas'uul ka ah
waxaa loo dhiibay waxaana la yidhahdaa ururka konton iyo afaraad ayaa la yidhahdaa waxaa taliya ka ah oo macnihii haysta nin la yidhaahdo cabdalle cali mire oo ma arkayse darajadiisu ay tahay corneyl oo u dhashay galmudug salballaartuu ka soo jeeda sidoo kale ururka konton iyo afaraad haddii aad baratay ee guutada toddobaad ururka 35 ayaa ah ururka labaad ee guutada waxa uu fadhiyaa halka loo yaqaano shiray ilaa iyo taxsiile ayuu fadhiyaa ururkaas ururka 35 waxaana loo dhiibay nin darajadiisu ay gaashan le tahay oo lagu magacaabo maxamed cabdulle caraaye oo ku magac dheer forfor isla markaana macnii ninkaasi aabba u yahay ama dhalay generaal gacmo duule oo aad garanaysaan oo ka soo jeeda hirshabeelle islow iyo ma arkayse odowaa ku beel ah haddana waxaa jira urur la yidhaahdo ururka 64 ee guutada toddobaad waa ururka fadhiya degmada afgooye gobolka shabeellaha hoose ee jamhuuriyadda barakaysan Maryland ururkaasi waxaa haysan jiray liibaan madaxweyne oo gaashan la sare mooryaantii hore ah oo macnihii lug iyo gacan baaralees ka noqday oo iimaan elman qabi jiray iska furay waxaa loo dhiibay laba xidig leh halac oo hadda saxaradu ay ma arkayse macnihii gees ku saxroodo oo macnihii boosoobay kadib markii shabaab ay jidka u galeen xaawo cabdi hadda ka hor halac ayaa la yidhaahdaa iimaan elman bay qaraaba yihiin waana nin reer ceelbuur ama albarakaad ka soo jeeda waan garanay darajadiisu halac waxaa weeye laba xidig leh waxaan kuu sheegay guutada toddobaad min afgooye ilaa iyo ma arkayse daafeed fadhida taliyaheeda abbaanduulaheeda saddexda urur ay leedahay dhammaan hal nin oo Maryland ka soo jeeda kuma jiro warka ma ku dhacay maayow waa fahamtay hal guuta iga qoro waxbaan kuu sheegayaa guutada labaad waxaa la yidhahdaa guutada lixaad ayaa lahaa laakiin awal waxaa la dhihi jiray guutada saddexaad magaceeda waa la bedelay guuta fadhida qaybta 27aad ee hirshabeelle ka howlgasha ayaa magaca looga bedelay taasaa lixaad ahaan jirtay tanna saddexaad ay ahaan jirtay waa la kala wareejiyey waxaana loo kala wareejiyey arrimo military daraaddeed ama sababo military daraaddeed guutadan waxaa fadhigeedu u yahay magaalada baraawe oo ku astaysan caasimadda maamulka lagu sheegay koonfureed ee Maryland waxaana taliya ka ah aadan laba afle oo mooryaantii indha cadde biyaha dadka ka iibin jirtay gobolka shabeellaha hoose ah oo cadaada oo dhuusamareeb iyo gurceel ka soo jeeda oo ayaan dhaweyd wala weyn markii la weerarayay sanaadiiqda rasaasta 50kii sanduuq ee ugu horeeyay salballaarta soo duushay isaga qayb looga qaaday hormarin ahaan 40 tiknika ah oo dawladda federaalka macnihii magaceeda huwan laakiin tiknika beeleed ah ku haysta min baraawi ilaa laanta buuro haddaba guutadan abbaanduulaheeda annagu magaciisu ma aynan helin haddaynu nahay SMC iyo jugta culus laakiin waan ku soo maqannahay waan raadinaynaa laakiin abbaanduulaha darajadiisaan haynaa guutada lixaad oo aadan laba afle reer galmudugga ah taliya uu ka yahay isla markaana salballaar ah abbaanduulaheeda waxa uu ku beel yahay generaal odowaa yuusuf raage ama madaxweyne sheekh shariif sheekh axmed ama madaxweyne xasan sheekh maxamuud ama wasiir islow ayay isku beel yihiin waa la qaybsaday soo ma jeedin dhulka darajadiisana waa gaashaan leh soo raadiya haddaad doontaan guutadan waxay leedahay ururo iyaduna 3 urur bay leedahay ururadu qaar waxay leeyihiin magacyo signaal ah signaal waxaa la yidhahdaa magacyo dadban qaarna magacyo toosay leeyihiin waana sir military waa militariga waxaa loogu talagalay waxaad maqlaysaa maroodi jeex af dheer afgaab waxaasoo dhan militariga ururadooda waa loogu magac daraa sidaasi awgeed guutadan ururo macnihii ururo magacyo dadbanna way leedahay magacyo toosna way leedahay haddaba
magacyada dadban ayaan ku bilaabayaa ee toosan ayaan ku bilaabayaa guutadan lixaad waxay leedahay ee baraawo fadhida ururka 18aad guutada lixaad weeye ururkaasi waxa uu fadhiyaa laanta buuro ayuu fadhiyaa waana qabiil mutaxan oo salballaartuu u badan waxaana taliya ka ah nin mooryaan ah oo biyaha shabeellada hoose iyo gumaadka dadka Mayland darajada lagu siiyey oo la yiraahdo liibaan yuusuf garre oo ku magac dheer liibaan goobaanle ama liibaan dhamaaq oo darajada garbaha loo suray ay tahay gaashanle dhexe kana soo jeeda dhuusamareeb iyo gurceel oo salballaartuu ah okay ururkaasi waxa uu fadhiyaa laanta buuro ururka labaad ee guutadan lixaad waxa uu fadhiyaa halka loo yaqaano shalambood ayuu fadhiyaa magac male magac dadban buu leeyahay ururka shalambood baa leeyahay magac dadban sir militariga u qarsan waayo sidaas daraadeed ururka shalambooda dadka loo sheegay ururkaasi waxa taliye ka ah nin la yiraahdo cabdi salaad oo isagu darajadiisu ay tahay gaashaanle xilka la siinayo bal fiiri mooryaantaas oo macnihii ka soo jeeda galmudug ka soo jeeda oo salballaartuu ah ayaa taliye ka ah ururkaas isaguna waxaa jira ururka saddexaad ee guutadan lixaad waxaa la yidhahdaa ururka 25aad mujada ururka 18aad urur magac dadban ee shalambood iyo ururka 25aad ururkan 25aad isaga wuxuu fadhiyaa halka taliska uu ku yaalo guutada macnii meesha ay fadhida ee baraawe jamhuuriyadda barakaysan Mayland ayuu fadhiyaa ururkan waa ururka 25aad ee guutada lixaad weeye yaa nagu beenin kara yaa ciidanka wax ka yaqaana aaway saraakiishii dowladda federaalka Soomaaliyeed labada company inaan idinku dhex jirno oo aan ognahay arrimihiina militariga ogaada ururka 25aad waxa uu fadhiyaa baraawe caasimadda maamulka Mayland waxaana taliye ka ah nin la yiraahdo Cabdiraxmaan Cilmi Jimcaale darajadiisu waa gaashaanle isla markaana waxa uu ka soo jeedaa galmudug salballaartuu weeye waa dadka shabeellada hoose 30 sano ee la soo dhaafay dhiigga dadka dharaar iyo cawaba qubayay weeye waan isla fahmay inta aan kuu sheegay laba guuto waay guutada 7aad ee dhasha dhigatay min afgooye ilaa iyo walaweyn iyo guutada lixaad oo dhasha dhigatay min baraawe ilaa ilaanta buur ma iiga sheegi kartaa hal nin oo maay ah oo taliye ka ah waana dhulkii Mayland galguduud mudug hirshabeelle hal nin oo maay ah oo taliye ka ah ma jiraa ciidanka haddii federaal uu yahay xagga jooga maya waay ka sii soco weli wax kale aan kuu sheegaya aan idiin sheegi doonaa laba guutaad iga haysataa qalin iyo buuq qaado dadka wax qoraayo war dunida dadka wax qoraayo akhri guutada 14 Oktoobar ay jirta marka waa guutada ugu ururada badan ama ugu ururka badan guutadan 14 Oktoobar waxaa fadhigeeda uu yahay oo ay fadhidaa magaalada Muqdisho jamhuuriyadda barakaysan ee Mayland laakiin hadda ayaa la doonayaa in taliskeeda loo soo raro baydhabo 2 ama X Janaale gobolka shabeellaha hoose jamhuuriyadda barakaysan ee Mayland in loo soo raraa hadda la rabaa guutadan oo macnihii taliskeeda la doonayo in macnihii loo soo raro baydhabo 2 oo macnihii haddana ilaa hadda degan Muqdisho siiba xerada General Gordon degan General Gordon waa taqaanaan waa xerada ku taala magaalada Muqdisho waay waxaa guutadan iyadu taliye ka ahaa nin la dhihi jiray Cali Aadan oo darajadiisu ay ahay gaashan la dhexe isla markaana galmudug ka soo jeeda salballaartuu ahaa adeerna ugu aadanaa General Cirfiidka haysta guutada 30aad ciidanka xoogga dowladda federaalka Soomaaliyeed haddaba guutadan waxaan rabnaa inaan ogaano
cidda loo dhiibay hadda haddii laga qaaday cali aadan oo galmudug ka soo jeeday yaa loo dhiibay ma nin maayaa loo dhiibay maya waxaa loo dhiibay nin la yidhaahdo warsame oo jigjiga ka soo jeeda oo axmed madoobe ama cabdirashiid xidig ku beel ah ayaa loo dhiibay oo darajada garbaha loo suray ay tahay gaashanla sare ayaa loo dhiibay dhulkana waa shabeellada hoose hadda ogow okay haddii sidaa ay tahay yaa abbaanduulo looga dhigay waxaa abbaanduulo looga dhigay nin la yidhaahdo cabdi cali raage oo cadaada ka soo jeeda dadkii dacaraha iyo shabeellada hoose 30 sano ummadda haaxda uga keenay rafaadiyey oo laayay dhiigga cabbay ayaa abbaanduulo looga dhigay hadduu dhurwaa xaakim noqdo arigu xaq buu leeyahay arigu xaqa uu leeyahay waa in la cunaa sidaasi daraaddeed dhulkana waa dhulkii mayland hadda ogow xaajada la isku haysto waa mid qara weyn hadday adigu kula dhanaan tahay rag bay u dhadhamaysaa hadday adiga kula dhadhamayso rag bay la qaraadhaa hadda ogow qarada la isku hayaa qabka la isku hayaa waa qab qara weyn abbaanduulihiisu waa cabdi cali raage cabdi cali raage waxa uu joogi jiray ururkii beriire ayuu taliya ka ahaa waxaana uu ahaa ninkii isaga iyo generaal odowaa markii odowaa taliyaha ciidamada lugta uu ahaa istoorkii xera nacnaca ku yaalay markii la jabsaday 5 dhashiike iyo 20 qori iyo rasaas tirada badan hantida qaranka markii la dhacayay ninka fududeeyay waay ee dhacay waay qarankana waa ka isla markaana la isku dayay in lagu nabo hantidaasi qaranka ah maxamed isaaq oo kabtankii abbaanduulihii danab ururka afraad ee bilidoogla ah mayland waxaan rabnaa inaan u gudubno haddaan ogaanay taliyaha iyo abbaanduulaha ururada ay leedahay guutadan waa imisa way badan yihiin waa midda ugu ururada badan magacyo dadban iyo magacyo toos ay leedahay kow ururkan magac dadban buu leeyahay lamber kow ururka awdheegle ayaa loogu magac daray magac dadban ururka awdheegle ee guutada 14 Oktoobar waxaa taliya ka ah nin la yiraahdo maslax oo gaashanle ah oo jigjiga ka soo jeeda oo axmed madoobe ama cabdirashiid xidig ku beel ah annagu waan idin barxayna waxba ma qarinayno ayaa taliya ka ah awdheegle waay okay magac kale oo dadban ururka labaad ee guutadan 14 Oktoobar waxa ay fadhidaa marko ururka marka ayaa la yiraahdaa waxa taliya ka ah dhamme ama kabtan ismaaciil kabtan ismaan ninkan waa nin marka ka soo jeeda oo mayland ah oo waafow ku jufa ah ninka kaliya badbaaday waay ururka saddexaad ee guutadan 14 Oktoobar ay leedahay waxa weeye ururka magaca dadban leh oo loogu magac daray ururka sabiid iyo caanole ururka sabiid iyo caanole waxaa taliya ka ah nin magaciisa aan ku maqanay isagana oo darajadiisu ay tahay dhamme ama kabtan ama saddex digle oo ku beel ah generaal odowaa yuusuf raage taliyaha ciidamada xoogga ama ku beel ah madaxweyne xasan sheekh maxamuud ama wasiir islaw ama madaxweyne sheekh shariif sheekh axmed warka ma ku dhameeyay ayaa taliya ka ah waxaad iga haysaa 4 urur baad iga haysaa guutada 14 Oktoobar haddana magacyada tooska ayaan macnaheedu u baydi doonaa urur koobaad ee guutadan waxaa hadda uu joogaa baydhabo 2 jamhuuriyadda barakaysan ee Mayland ama ex janaale ayuu hadda ka howlgalayaa waxaa taliya ka ah nin la yiraahdo maxamed nuur oo gaashanle ah oo u dhashay Mayland waa hal qof ah maanta oo dhan waxaan tirinaynay halaan ka helnay soo ma jeedin okay ninkaas isaga nafsadiisii waa lagu daba jiraa cornel maxamed nuur nafsadiisa waa lagu soo daba jiraa maxaa loogu soo daba jiraa yaasa ku soo daba jira odowaa yuusuf raagaa ku soo daba jira taliyaha ciidamada xoogga oo salbalaartu u dhashay ayaa ku soo daba jira wuxuuna mar walba la raadinayaa qaabkii xilka uga qaadi lahaa cornel maxamed nuur isagoo dagaalka baydhabo 2 lagu qabtay janaale macnii wax ka hogaaminayay
dhulkana u dhashay ayaa gabdho ay kufsadeen urur salbalaartuu ay wataan oo dad deegaanka gabdhooda kufsaday markii la kufsaday odowaa yuusuf raage wuxuu isku dayay in uu dusha ka saariyo kufsigaasi ururka korneel maxamed nuur inay geysteen si dembi loogu soo oogo sidii kabtan cabdalla taliyihii gaadiidka danab urur afraad hadda ka hor lagu sameeyey oo kale iyo kabtan maxamed isaaq ee abbaanduulihii danab oo xabsiga la dhibay dulmi xabsi loo dhigay aad ogeydeen muddo aan ka sheekaynaynay jiniqaar sheekadiisa oo kale si xilka loogu soo marmarsiyoodo looga qaadaa loo sameeyey ilaa hadda kabtan corneel nuur gagambashow ku jira odowaana wuxuu arki la'yahay corneel maxamed nuur inuu xil ka qaaduu raba markii dambe waxaa caddaatay in ururka kabtan maxamed nuur ee ururka koowaad ee guutada 14 oktoobar uusan kufsan gabdhahaas okay kuwii kufsaday markay salbalaartuu noqdeen cid wax ka qabatay ma aragteen meel la sheegay ma aragteen ma jirto saqiiradii lagu kufsaday afgooyo oo kala waa cid sheegaysa male hadday mayba hadday yihiin haddaba jidkan may iyo maxaabaa dadka loo kala soocaya wixii may ah dil iyo dhac iyo kufsi waay wixii maxaa lama taabanayo soomaaliya marka way kala guudhay okay 5 urur oo guutadan 14 oktoobar ay leedahay aan kuu sheegay ururka lixaad ee guutada 14 oktoobar waxaa la yidhaahdaa ururka labaad ayaa la yidhahdaa isaguna jannaala ayuu ka howlgalaa ama baydhaba 2 ayuu ka howlgalaa ururkan waxaa taliya ka ah nin la yidhaahdo cali tigree oo u dhashay caabuduwa farmaajo ku beel ah ayaa macnihii taliya ka ah darajadiisuna ay tahay dhamme 3 digle ama kabtan saa u taqaanid kabtan ayaa taliya ka ah caabuduwa general sheega waa jooga kabtan cabdallah jooga kabtan maxamed isaaqaa jooga kabtan cali baqaaraa jooga kabtan barkulanaa jooga haddii kabtan la rabo kabtan isaaq gaabaa jooga kabtan ciise saleem warniyo waxaa lama wadi karo niyo sheekadan maayo waxa la wadi kara maan waxaan kuu sheegay 3 guuto guutada 7 ee fadhida min afgooye ilaa iyo walaweyn 3 urur ka kooban taliyaasheeda abbaanduulaheeda ilaa iyo ururada taliyaasheeda taliya urureedyada dhammaan hal qof oo nin maylana kuma jiro waxaan kuu sheegay guutada 6 min baraawe ilaa iyo fadhida laanta buuro hal nin oo mayland ka soo jeeda taliya kama aan 3 urur abbaanduulaha iyo taliyaha guutadaba waxaan kuu sheegay oo kale guutada 14 oktoobar oo iyaduna macnihii ka howlgasha shabeellada hoose 6 urur ay leedahay hal nin oo la bursanaya taliya urur ka ah macala taliyaha abbaanduulaha iyo 5 urur oo kale shaqo kuma liid 3 guutaad iga haystaa marka shabeellada hoose waxaan u gudbaynaa haddana guuto kalaan u gudbaynaa waxaa jirta guuto la yidhaahdo 12 abriil guutadaasi waxay fadhidaa qayb waa guutada koobaad waxay fadhidaa qaybta 12 abriil waxay ka howlgashaa damaanyo meeshii dowladdii siyaad bara markay jirtay tuutaha dowladda lagu tali jiray oo hubka iyo rasaasta lagu kaydin jiray u dhow shiir kale ofijaale meeshii saraakiisha ay degi jirtay dowladdii kacaankii siyaad barre isla markaana burburkan reer galmudug ay ku habsadeen sariyi ay burburiyeen oo macnihii buushash iyo jiingado badan ay ka dhisteen dowladihii cabdullaahi yuusuf kadibna ma arkayse macnihii laga saaray haddana qaarkood xoog ay ku haystaan sidaasi daraaddeed damaanyo ayaa la fariisiyey qaybta 12 abriil qaybta 12 abriil waxay leedahay guuta koobaadda xasan jaamici oo dembi ka galay qaranka reestaa tahay maalmo inta la yidhi guuta 7 laga soo qaaday unbaa loo dhiibay guuta koobaad haddana loo dhiibay intay ka howlgashaa guutadaas meel kale ay ka howlgasho ama qaybtaasi ma jirto muqdisho oo fadhigeeda kama howlgasho hirshabeelle kama howlgasho shabeellada hoose besay ka howlgashaa waxayna ka howlgashaa ceelsiniin iyo aagaasi waa kii ayaan dhoweyd xasan jaamici uu shirqoolay ciidamada qaranka oo macnihii boqolaal lagu dilay ma arkayse hantidiina shabaabkii reer galmudugga uu u gacan geliyey rasaasta iyo hubka okay guutada koobaad ee qaybta 12 abriil iyaduna waxay ka howlgashaa
ceel siniin gobolka shabeellaha hoose waa kuwii xasan jaamici waa kuwii hadda ka hor ku gubay lixda caruur iyo hooyadood oo uurka leh lambar konton ku gubay gobolka shabeellaha hoose waay oo ilaahay hadda waxba aan la iska weydiin 4 guutaan kuu sheegay waxaan u gudbayaa guutada shanaad marka guutada shanaad waxaa la yidhahdaa gorgor ayaa lahaa dadka qaarkiina waxay u yaqaanaan turkisom ayaa loo yaqaanaa laakiin turkisom xerada ayaa la dhahaa ee lagu tababaro ciidanka laakiin guutada waxaa la yidhaha gorgor guutadan gorgor ururo badan bay leedahay way laama ballaadhan tahay hadda baar dheeraa urur ka jooga oo la rabo in bo-aale lagu qabto buula xaawaa urur ka jooga mayland oo la rabo in lagu qabto macnihii dhulka sidoo kale 2 urur oo ka mida guutadan gorgor ama turkisom hadda jannaale ama x baydhabo 2 ayay ka howlgalaan waa shabeellada hoose yaa taliyaalka ah inaan ogaanaan u baahanna sideed ahaanba guutadan turkisom ama gorgor fadhigeedu waxaa weeye xero nacnac weeye xero nacnac waxay ku taallaa jasiira xerada xalane agteeday ku taallaa ninkii milatariga yaqaana iyo dhulka waxaana guutadan taliya ka ah nin la yidhaahdo gaashaanle xasan cadde oo macnihii sidii qayre oo kale okiyaal intuu saarto u hadlo oo jila sidii qayruu iska raaraadiyaa qayre markuu faamaysanaayo oo macnihii hanagu haddaynu nahay nabad iyo nolol macnihii qaabkii qayruu iska raadiyaa waa nin ka soo jeeda cadaada iyo bandiiradley dhuusamareeb ilaa iyo ma arkayse gurceel waa galmudug salbalartuu waay xasan cadde ayaa la yidhahdaa darajada garbaha loo suray waa mooryaantii hore waa gaashaanle waa mooryaan gaashaan laga dhigay qayre ayuu jilaa u iska raaraadiyaa sidii qayre oo kale u hadhadlaa xataa wuxuu ka hadlaa meelaha telefishinada iyo mararka qaar uu ka hadlaa in badan ayuu raadiyaa qayre inuu jilo ninkaasaa taliya ka horta guutada gorgor ama turkisom loo yaqaano 2 urur ee ka howlgasha marka shabeellada hoose guutadaas ka midka ee jamhuuriyadda barakaysan Maryland waxay kala yihiin urur koobaad iyo urur saddexaad ee guutada gorgor ama turkisom ururka koobaad waxaa taliya ka ah nin la yidhaahdo sahiid jareere ayaa taliya ka ah sahiid jareere darajadiisu waa kabtan waxaana uu ka soo jeedaa caabuduwa ama beesha maxamed cabdillaahi farmaajo ayuu ka soo jeedaa caabuduwa waxay ka talinaysaa shabeellada hoose jigjiga waxay ka talinaysaa shabeellada hoose hirshabeelle waxay ka talinaysaa shabeellada hoose Maryland galmudug waxay ka talinaysaa shabeellada hoose puntland waxay ka talinaysaa shabeellada hoose ايش هذا waxaan maxay yihiin laakiin Maryland hirshabeelle guutooyinka jooga kama talinayso taliya kama aha Maryland guutooyinka jooga galmudug taliyaal kama aha Maryland macnii ciidanka jooga ee puntland taliyaal kama aha adaa baran waayay buugii lagu sii waxbaan kuu sheegaya okay ururkan gorgor ee ka howlgala guutada gorgor ee ka howlgala koobaad baydhabo 2 shabeellada hoose waxaa taliya ka ah nin la yidhaha sahiid jareere oo caabudu waa ka soo jeeda oo farmaajo ku beel ah darajadiisu ay tahay ee garbaha loo suray kabtan isla markaana ka mid ahaan jiray ciyaalkii uu wadwadan jiray generaal caanood baanduulihii hore ee ciidanka xoogga dalka federaalka Soomaaliyeed caanood oo isaguna caabudu waa ka soo jeeda ku beel ah maxamed cabdillaahi farmaajo waliba sahiid jareere wuxuu caanood u ahaa xoghayn buu u ahaa waan garanay ee ururka saddexaad ee guutada gorgor ka howlgasha shabeellada hoose baydhabo 2 Maryland waxaa taliya ka ah nin la yiraahdo xasan cali sanweyne waa darajadiisu dhamme 3 digle kabtan waa
waxaana uu ka soo jeedaa jamhuuriyadda barakaysan ee Maryland. hadda ayuu joogaa Jannaale ama Baydhabo tuu hadda fiiri meeqa guutaan kuu sheegay guutada 7 guutada 6 guutada 14 Oktoobar guutada gorgor ama Turkisom intaas oo guuta ah taliyaashooda iyo tali urureedyadooda iyo macnihii abaanduulayaashooda dhammaan 2 qofood ayaa 2 urur taliyaalka ah oo iyagana lagu soo daba jiro ma lagu sheegay 2 wiil oo Maryland u dhalatay bas oo garbaana laga soo taagan yahay ayaa 2 taliya ururka inta kale kuma xisaabsana wax dalka u dhashay ma waa wixii adiga ku dilaayay intaas oo guuta hadaa iga haysatid waxaad u gudbaysaa haddana guuta kala day waxaa la yiraahdaa guutada danab ee fadhida garoonka diyaaradaha militariga ay furugow ama Balidoogle gobolka Shabeellaha Hoose ee Jamhuuriyadda Barakaysan Maryland. guutadan horta boqortooyo ay u eg tahay boqortooyo guutadan qaabkeeda markaa fiirisid urur baa lagu soo aasaasay laakiin boqortooyo ay isaga eg tahay awal waxaa meesha fadhin jiray ururka afraad guuta laga dhigay markii General Tima Cadde loo arkay inuu qaybta 6aad ku soo wado wadadan leega iyo aqbari weyne uu xoreyn rabo qayra ka qaaday wuxuu geeyay nin Ismaaciil la yiraahdo oo ra'iisul wasaare qayre ay isku qolay yihiin ceelbuur ay ka soo wada jeedaan salbalaartu ay isla yihiin oo gaashan le ah darajadiisii Ismaaciil la yiraahdo ayaa taliye guuta looga dhigay waa la balaariyay guutadan boqortooyo inay tahay dib aan uga faalloon doona Ismaaciil waa taliyaha guutada danab waay guutadan danab ee Balidoogle fadhida abaanduula male no abaanduula laga dhigay wax abaanduula male no abaanduula waay wax abaanduula looma sameeynin calaashan ninkan salbalaarta ah ayaa taliye ka ah inaanan lagu qashqashaadinba maxaaba loogu qashqashaaday way uu baqaaya wuxuu ka baqayaa reer galmudug kale salbalaarta kale iyo Maryland waxooga weeshara marka sidaa awgeed asxaan uma sameeyay wax abaanduula amale kuwa been soo qoray laakiin been hal lugay leedahay itusoo itaabsi aan ku shaqaysanaa anaga abaanduula male taliyaha guutada danab ee Balidoogle waa Ismaaciil ra'iisul wasaare qayra keensaday ku beel ah inta waa isla fahmay guutadan waxay leedahay taliye urur macni urur afraad bay leedahay urur afraadka waxa haysan jiray dad kala duwan boqortooyo inay tahay aan ku sheegay laakiin hadda waxa taliye ka ah nin laba xidigla ah oo la yiraahdo Maxamed Saleebaan oo ka soo jeeda Garowe ayaa taliye looga dhigay waa Garowe from Garowe direct to Shabeellada Hoose waan fahmay guutadan ee ururkan inuu boqortooyo yahay waxa daliilku ugu filan kow waxaa lagu aas-aasay nin la dhihi jiray Xasan Commandos oo gaashan la sara ah hadda laakiin generaal ah annaga kuweena janana sheegaysaa ee maba ka caamba kuwii waagi Cabdullaahi Yuusuf ilaahi hadda waxay joogaan dable alifle arasan laba alifle laba xarigle maba dhaafaanba xabadana iyaga loo hordhiga wax walba iyaga soo afjara nin la yiraahdo Xasan Commandos oo gobolka uu ka soo jeedo Maryland aan ahayn sida aan rajaynayno aan ku maqanahay ayaa koow la keenay Xasan Commandos waa laga qaaday ururka danab Balidoogle waxaa loo dhiibay oo taliye looga dhigay nin la yiraahdo Yacquub oo ka soo jeeda Garowe ama Puntland Yacquub darajadiisu waxay ahayd gaashan la sare ayay ahayd maya gaashan la dhexe ayay ahayd haddana general waa jawaa la bootiyey gaashan la dhexe from gaashan la dhexe awalba darajada lafta geela badhaana lagu siiya from gaashan la dhexe to general waa sheekadii in dhacdo waay in dhacdo iyo Cabdi Qaybdiid general iyagoo aan aragnay in dhacdo oo dawladii siyaad baray ilji wadi jiray oo qaad iyo qamri cuni jiray iljigiisa xataa fariin aan lahayn oo lagu celin jiray baalkii laba alif lu ahaa lagu celin jiray ma arkaysa geed ama macni alwaax lagu celin jiray marka la qaboojiyo lantara u yahay maanta janan waay
ma fahmaysaa marka isku soo wada duub ninkan la leeyahay yacquub puntland uu ka soo jeeday gaashan la dhexu ah hadda janan waayo markii laga qaaday danab marka isla markii waa la dalacsiiyey waxaa loo dhiibay hoggaanka macnihii waxaa laga dhigay madaxa hoggaanka maamulka lacagtaa laga dhigay money madaxa hoggaanka maamulka lacagta wasaaradda gaashandhigga dowladda federaalka soomaaliyeed ayaa markiiba loo dhiibay from urur to hoggaanka maamulka lacagta wasaaradda gaashandhigga federaalka soomaaliyeed puntland uu ka soo jeedaa okay intaas waan isla fahmay haddana waa laga qaaday ninkii yacquub ahaa waxaa loo dhiibay markii laga qaaday ninka yacquub ah waxaa loo dhiibay isla nin puntland ka soo jeeda magacii ma taqaanaa waxaa la yidhahdaa axmed danab ayaa la yidhahdaa axmed danabaa loogu magac diray axmed danab ninkaa isagana intuu ka soo jeedaa puntland weliba waxaa soo amray darajadaasi in lagu bedelo yacquub axmed danab soo amray cabdiweli gaas kii hadda ka hor yidhi wiil diinsoor iyo boqol ka yimaaday oo dacas wato miyaa dhulkeena nagu xukumaya cabdiweli gaas oo markaasi meesha joogay puntland madaxweyne ka ahaa ayaa villa soomaaliya la soo hadlay waxaa la yidhi ninkaas waa in loo dhiiba booskaasi ma laga qaaday yacquub ah ninkan waa ina loogu bedelaa sidiyaa loogu dhiibay axmed darajadiisu maxay ahayd gaashan la saray ahayd hal mar inta la bootiyey oo la dalacsiiyey waxaa laga dhigay macnihii darajadaa sare loo dhiibay okay waxay isku dhaceen marka odawaa yuusuf raage taliyaha ciidamada xoogga dowladda federaalka soomaaliyeed oo markaasi abbaanduul ahaa ayay isku dhaceen ninkan warka aada u faham axmed danab oo puntland ka soo jeeda oo danab loo dhiibay iyo taliyaha ciidanka xoogga markaasi waxa uu ahaa genaraal daahir aadan indhaqarshuu ahaa indhaqarshe fiiri xilligaasi ma jirin dadka ciidamada yaqaano dhagaysta xilligaasi ma jirin taliyaha ciidamada lugta ma jirin taliya ku-xigeenka ciidamada xoogga ma jirin waxaa lagu shaqaynayay waqtigaasi waa isla farmaajo markuu imaado xataa waxaa lagu shaqaynayay taliyaha ciidamada iyo abbaanduulaha bes abbaanduul iyo taliya ciidan besaa jiray taliyaha ciidamada lugta ma samaysnayn taliya ku-xigeenka ma samaysnayn taliyaha ciidamada hadduu maqan yahay abbaanduulkaa booskiisi buuxin jiray taliyaha ciidamada lugtana isagaa matalayay hawsha saasay ahayd marka waxaa isdagaalay axmed danab oo puntland cabdiweli ka soo diray oo bilidoogle loo dhiibay markaas ururka afraad iyo waxaa isku dhacay ninka la yidhaahdo abbaanduulihii waqtigaasi ciidamada xoogga genaraal odawaa yuusuf raage warka inaad fahamtidaa la rabaa markay isku dhaceen marka odawaa xilka ma qaadi karo soo jeedin buu leeyahay haddii taliyaha ciidamada uu joogo laakiin haddii taliyaha ciidamada uu maqan yahay isagaa abbaanduulkaa booskiisa isagaa jooga daahir aadan indhaqarshe oo ku maqan masar oo safar ku jira ayuu ninkan marka xilka ka qaaday sidii axmed danab xilka looga qaaday haddii laga qaadayna waxaa lagu bedelay nin la yidhaahdo jiniqaar oo markaasi kabtan buuxaa xataa aan ahayn oo isla markii kor inta loo bootiyey gaashaan laga dhigay oo isagana puntland ka soo jeeda maxaan kuu sheegay kumaandoosa haystay yacquub oo puntland ka soo jeedaa loo dhiibay danab haddana waxaa loo dhiibay axmed danab oo puntland ka soo jeeda haddana waxaa loo dhiibay markii laga qaaday jiniqaar oo ka soo jeeda puntland oo hantidii qaranka iyo stoorkii dhacay kabtan maxamed isaaqi cabdalla macnihii ku nabay aada ogeydeen oo tiyaatar arrintiisu ahayd isagoo dembiile ah oo macnihii maxkamadda ciidamada qalabka sida ay soo xidhay qabiilnimo lagu sii daayey oo baarlamaanka federaalka soomaaliyeed xildhibaan maxamuud uga dacwooday isagoo
faambaysanaya garoowe laga dejiyey waad ogeydeen ka degay laga dejiyey maalin haddana jiniqaar haddii laga qaaday boqortooye inay tahay aan kuu sheegaya haddana isla markii waxaa loo dhiibay laba xidigle maxamed saleebaan oo haddana garoowe ama puntland ka soo jeeda warka ma ku dhacay maxamed saleebaan beenlow nin maqani nin mootan buu markhaati ka dhigtaa hadda wuxuu joogaa bilidooglu joogaa ururka afraad isaga ayaa taliya ka ah intaa waa isla fahmay maxaa kaleetoo qarsoon boqortooyadaas haddaa ka gudubtay waxaa kaleetoo qarsoon ururka danab bilidoogle ama guutada danab waxaan ciidanka lagu maqlin ayaa macnihi laga dhex sameeyey ciidan iyo siyaasad shaqo iskuma lahan seerjita iyo siyaasad waa la kala celiyaa waad ogtihiin genaraal ibraahim yarow oo ahaa taliyihii qaybta 6aad magaalada baydhabo doorashadii baydhabo intaan la qaban madaxweyne mukhtaar roobow lasoo shirqoolin ka hor waxaad muuqaal ah ka daawateen isagoo askarta u dhaaranaya oo dhahaya haddii nin askariya siyaasad lagu arko doorashada soo socota sharciga macnihi tallaabo sharciga waafaqsan baa laga qaadaya waad maqlayseen marka sidaa daraaddeed bilidoogle waxaa laga sameeyey marka gudaheeda xafiis baa laga sameeyey waxaa madax looga dhigay nin la yidhaahdo cabdijabbaar oo darajadiisu kabtan ah oo ka soo jeeda hirshabeelle oo reer daayir amiin jeesow ku beel ah ama salaad fiiqow abbaanduulaha guutada 7 ku beel ah maxaa laga sameeyey waxaa madax looga dhigay xafiiska arrimaha bulshada wallaweyn iyo nawaaxigeeda weligiin ma aragteen tan oo kale war tan oo kale weligiin ma aragteen reer maylanow xafiiska lagulaha madaxa xafiiska arrimaha bulshada arrimo bulsha hadduu yimaado nin shacaba waa in loo doortaa de maxaa seerjita arrimaha bulshada ka galay xafiiska annagu xaggeen joognaa xafiiska arrimaha bulshada degmada wallaweyn iyo nawaaxigeeda ninka mas-uulka ka ah waa nin amiin jeesow ku beel ah kuwa dadka dhacaya ee dila ay kufsanaya magaciisu cabdijabbaar baa la yidhahdaa danab buu ka tirsan yahay hadduu joogaa meesha waana ninkii habeenkii dagaalka markuu dhacay ambalaasta intuu la soo baxay ay ka mamnuuc tahay qabiil in lagu daweeyo reerihiisu ku daweynayay 9 macnihii qofood 5 dhaawacyo ay wadaan ee albaabka uu soo istaagay askarigii soomaalida kala ahaa ee macnihii sarkaalkii gaarka hayay awoodda lahaa markuu diiday salaad fiiqow la hadlay abbaanduulkii awood dul dhigay sidaa lagu daweeyey iyagoo hubkooda watana lagu qariyay bilidoogle amisom dawadeedana lagu daweeyey kaaga sii daran hadda waa la sii dalacsiiyey waxaa loo dhiibay xafiiska taliska guutadana waa loo dhiibay haddana waxaa loogu sii daray ninkaasi oo laga dhigay madaxa tababarka guutada danab ee bilidoogle nimaan isagu tababarin ama kantaroolinna maba shaqaynayaba warka ma ku dhacay ahna siyaad baraan ku naqaanay afweyne ahna sareeyo guuto ahna madaxweynaha ahna mas-uulka xisbiga ahna jaalle ahna nooq sidii wey saacaddan aan idila hadlayna marka dallacaadaha hadda socda fiiri waxaan kuu sheegay guutada 7 taliyaasheeda iyo taliya ururadeeda hal nin oo maaya kuma jiro oo fadhida afgooye ilaa iyo wallaweyn mayland guutada 6aad taliyaasheeda iyo taliya ururadeeda ilaa iyo baraawe ilaa iyo laanta buuro hal nin oo maaya kuma jiro guutada 14 Oktoobar hal maaya ku jira 6 urur waay taliyaasha iyo taliya ku-xigeenada iyo abbaanduulayaasha dhammaan iyo ururada hal marka laga reebo inta kale waa dadaan deegaanka u dhalanin okay guutada gorgor shaqo kuma liid hal nin oo lagu daba jiro guutada danab waxba kuma liid guutada guutada koobaad qaybta 12 abriil ee ceelsiniin ka hawlgasha waxba kuma liid salballaar labada kambaniyaa qaybsaday talow annagu yaabnaye ma rashiid iyo rasaaq unbaa nool inta kale ma rootiba ma rashiid iyo rasaaq baa nool inta kale ma rootiba waayahaye mucjisadan iyo rafaadkan maxay u qabatay dadka Maryland kaliya maxaa federaalka loogu dilayaa
maxaa saraakiisha mayland loogu diiday inay xilalka qabtaan su-aal qaybta 27 abriil ee qaybta 27aad waxay fadhidaa hirshabeelle hiil weynay fadhidaa guutooyin badan bay leedahay hal nin oo deegaankaas aan u dhalan taliya kama ahan hal nin oo mayland ka soo jeeda taliya kama ahan qaybta 21aad oo fadhigeedu yahay dhuusamareeb galmudug iyo macallo danabteeda hal nin oo mayland ka soo jeeda walaalayaal taliya kama ahan haye puntland iskaba dhaaf warkeedaba dhaaf hal nin oo may ah xitaa taliya unug kama noqon karo mana ka ahan mana la sugaayo marka siday ku dhacday in gobolka shabeellaha hoose yaa macnihii intaan oo guutooyin aan sheegnay hal qof oo deegaanka u dhashay aan taliya ka noqonin say ku dhacday dowladnimada noocaasi siday u shaqayn karaysaa maxay mucjisadaanu tahay markaan runta aan sheegnana waxaana la dhahayaa qarandumis baa tihiin war qarandumis ma ahana miisaankan ma fadhiyo war miisaanku ma fadhiyo sidaan sidee ku qabatay midda kale sidee buu askarigu ku dallacaya dadka deegaanka aan u dhalan puntland iyo galmudug iyo hirshabeelle iyo xamar meel walba shabeellada hoosey dallacad usoo raadsanayaan shabeellada hoosey kufsi usoo raadsanayaan bal iyagaa mararka qaar kufsada dadka dhaca oo tuutaha dowladda xidhan dila oo booba waad ogtihiin laba af leh hadda biyo iibintii inuu dib baydhaba tuu uga bilaabay inuu dadka biyaha ka iibiyo sheekadii marka iyagoo ku dhacaya ku boobaya dallacaadana waxay usoo raadsanayaan shabeellada hoose dhaca shabeellada hoose saqiirada 3 jirada xataa way kufsadaan oo way kudaan waxay dhaafaan male waxaa u dambeeyey kuwii afgooya isku fureen way kaa dilanayaan saraakiishaada kabtan maxamed isaaqay shirqooleen kabtan cabdalle ay xabsi ku rideen sidoo kale ma arkayse taliya cabdiqaadir nuunow taliyihii saldhigga degmada afgooye jamhuuriyadda barakaysan mayland oo mayland u dhashay oo toorotorow ka soo jeeday intuu macnihii kala saaray islaantii reer laascaanood guriga laga haystay reer galmudug uu uga qaaday taliya xajaar taliyaha belayska uu soo amray ayaa waddada markuu macnihii soo noqonayo la huwiyey la dilay se uma jeedid marka walaalayaal taliyaha daraawiishta ee jooga degmada afgooye waa nuur xayir waa ninkii daraad macnihii ciidamada u soo raray maleeshiya beeleedyada yaaqberi weyne keenay waa oo baabuur kusoo daabulay aan sheegaynay arrintan macnihii inay guda ballaaran tahay oo macnihii yaaqberi weyne iyo leega iyo dhulkan la doonayo in macnihi la goosto macnihii arrin reer jeesow keliya ku kooban ma ahan awooddaasi itaalkaasna ma lahan horaan idinkugu sheegay marka isku soo wada duub taasay ahayd walaal makaa dhargiyey dallacaad hadda socota wiilka mayland sidee buu dallacaad ku heli karaa gobollada kalena looma magacaabo isagoo nasta digtoonow la leeyahay buu ka soo howlgalaa bes okay dhulkiisina intaan oo guutooyin dad kalaa dallacaad ku qaadanaya boobaya dhacaya qarannimada noocaasi mayland ow ka fiirso haddii aad ilaahay taqaanid war somaliland way tashataye haddii ilaahaygii ku abuurtay aad taqaanid mayland dadka idinkaa u badan